saaka waxaan taagannahay annagoo guddiga horumarinta degmada Gaalkacyo waxaan taagannahay wadada dheer oo ka soo bilaabata muxuu ahaayay warshad galey controlka tagaysa ilaa Haas Petroleum wadadaas oo la rabo in la saaro laami saa u jeedaanba waxaa ku socotay shaqo dhowr jeer baa waxaa la saaray carakaabadii hadda waxay maraysaa stage-kii la rusheynayay kadibna waxa weeyaan wajiga ku xiga waxa wajigii laamiga la saari lahaa marka saaka waxaan u nimid inaan soo kormeerno tayada laamiga meesha uu marayo iyo waxa qabsoomay waxaana lagu sameeyay waxa weeye $2 oo laga qaaday shacabka magaalada Gaalkacyo oo ahaa biyaha iyo korontada dadka reer Gaalkacyo waxaan leeyahay wixii aad bixiseen waa mira dhaleen hadda laami bay idin marayaan ma aha lacagta idinka la idinka qaaday oo kaliya inay muxuu laamiga dhistay laakiin waxa weeyaan kaalmo fiican bay ahayd oo laamiga qayb ka qaadatay sidoo kaleeto waxaa loo baahan yahay marka aan wadadan dhamayno waxaa jira wadooyin kale oo iyagana lagu sameyn doono carakaawo lagu sameyn doono laakiin waxay ku xiran tahay sida bulshadu qayb uga qaadato waxay ku xiran tahay sida bulshadu ay muxuu ahaay u kala aktiifsan tahay oo iyagu ay u dalbadaan oo yiraahdaan anagu diyaar baan nahay qaybtayadii bulshada diyaar baan nahay waxaan rabnaa guddigu inuu noo yimaado marka waxa weeye waxaan ku faraxsanahay tayada jidka maanta ee aan soo kormeernay oo aan ka soo bilownay ilaa iyo controlka haddana waxaan u soconnaa ilaa iyo muxuu ahaayay Haas Petroleum sidaad aragteen meelaha qaarkood waxa yaala carakaawadii waa la socotaan oo laamiga waxa waa laga adeegtaa haddii laamiga la xiro labada dhinacba waxa istaagay adeegii isku socodkii bulshada marka waxay dantii ugu kaliftay waxa waaye shirkadda dhib bay ku qabtaa in dhinac markii la dhisaba dhinaca kale haddana loo wareego taasaa keentay inay iyaduna waqti qaadato marka hadda waxa weeyaan wad arki doontaan laamiga labadiisa qaybood qaybta ciidu taala iyo qaybta laga shaqeeyay marka alxamdulillah waxaan rajaynaynaa bishan gudaheeda soo socota inuu laamigu dhamaan doono horumarinta degmadu waxay joogaan wadadii halbowlahayd oo laamiga ahayd oo la sameeyay ilaa idankiis waxaan rajaynaynaa inay inoo dhamaato waxa la rabaa dadweynaha reer Gaalkacyood $2 oo laga qaaday oo korontada iyo biyaha la saaray oo dadweynuhu bixinayay ayaa laamiga lagu dhisayaa waxa la rabaa marka inay dadku ku dhiiradaan oo iska kaashadaan oo lacagta baxshaan laami tayo leh oo qurux badan baa loogu dhisayaa ilaahay idankiis laamigu wuxuu ka soo bilowday controlka Koonfureed wuxuuna ku egyahay isbitaalka haddana wuxuu ka bilaabanayaa Cumar Samantar wuxuuna ku egyahay gobolkii hore intaas oo dhan marka waxa weeye waa dadweynaha ayaa iska kaashaday haddaynu ku dhiiranno $2 inaynu bixinno sadaqana waa inoo tahay horumarna waa inoo tahay wadankeena aan ku maalgashanayna weeye guddigu waxay ku shaqeeyaan tabarucaad lacagta $2 waxay ku jiraan gacan aamina amal baytaallah waa lacag markay soo aruurtaba waxa qabad diyaar ah waxaad ogtihiin ilaa 6 wado oo in la habeeyay oo la xaaqay oo saddexna israac tahay saddexna ay tahay garsoor wadooyin kalena qorshaha waa noogu jira ilaahay idankiis oo wadada ka bilaabanaysa hotel Mubaarak ilaa xabsiga ilaahay idinku waxaan rajaynaynaa in carakaawo tayo la saaro iyaduna oo ah wadada halbowlaha oo aada ilaa iyo reserve wadooyin kala badan oo qorshaha noogu jira ayaa jira waxaan maanta rabnaa marka inaynu isku ogaano dadweynaha reer Gaalkacyood wixii lacagta aad bixiseen oo $2 ahayd way mira dhashay laamigaas la saaray halbowlaha laamiga waxa lagu qiimeeyay $246,000 inta kaliya oo isbitaalka ilaa iyo controlka lacagtaasna waxa laga baxshay in yar oo kibaarka ku deeqday maahane inta kale waxa bixiyay guddiga horumarinta waana lacagtii $2 ahayd oo la ururshay marka reer Gaalkacyood waxa inoo ballanay inaynu wadankeena u heelino deegaankeenana horumarsano dadka dibadda jira oo reer Mudug ama reer Gaalkacyoodka waxa laga rabaa inay idinkuna qaybtiina ka qaadataan iyadoo dhammaystiran akoon baa la furi doonaa dadka dibadda iyo jaaliyadaha waxtarka u leh gobolka waxaan rabnaa inay akoonka yaran ka qayb qaataan oo lacagtaas ay horumarka ay ku soo ku ridaan oo iyaguna maaragta qaybtooda qaataan guddigu waxay diyaar u yihiin xisaabtan sanad walba ama 6 bilood oo hufan inaan hadba soo bandhigno wixii baxay iyo wixii soo galayba iyadoo mid walba rasiidkeeda iyo dukumiintigeeda oo dhammaystiran ay leedahay aad baan u salaamayaa bulshada reer Puntland gaar ahaan gobolka Mudug maanta ay taariikhdu 24 bisha 7
2024 waxaan halkaan isugu nimid annagoo ah guddiga horumarinta ee degmada Gaalkacyo inaan kormeer ku sameeyno shaqooyinkii runtii baaxadda weynaa ee kambaniga Kibaar ku waday waxaanu kormeerka ka soo bilownay control koonfureed magaalada haddana waxaan taagannahay argadii magaalada caloosheeda ahayd waad arkaysaan gadaasheeda inay taagan tahay carradii fayska labaad oo la dhigayay tii hore shalay baa kala baxshay maantana waxay dhigayaan fays qaybta labaad waxaa saa loo samaynayaa magaalada isku socodkeedii waddadan halbowley u tahay marba waa in jaan laga shaqeeyaa ummaddana loo fasaxaa jaanta kale hal mar shaqada lama wada qaban karo waxaan ummadda u caddaynaynaa inaan shaqadaasi insha allah tacaala ay ku gabagaboogi doonto bishaan agoosta kala barkeeda ama aakhirkeeda in magaalada ay heli doonta 2 kilomitir bar oo laami isku xiran waxaana la socda biyo shubkii drainage-ka ahaa runtii bishii hadda la soo dhaafayna waxaanu qabannay in 6 kilomitir labada magaalada dhinacyadeeda xaafadaha aan waxa weeye ka caraqaadnay oo wadooyinkii biyaha iyo roobabka saameeyeenna aan runtii wax badan ka qabannay ilaahay idinkii weeye fadliga ilaahay weeye waxaana marka labaad u mahad celinaa shacabweynaha reer Gaalkacyo runtii sida xilkaska iyo waxgaradnimada ay u bixinayaan lacagta contribution-ka loogu talagalay in magaalada lagu horumariyo waxaan bogaadinaynaa shacabka waxaan mar labaad ka codsanaynaa in cidda aan bixin ay bixiso dadaalkii juhdiga la laba jibaaro dowladda Puntland madaxweynahan insha Allah waxaan ku baaqaynaa in drainage systemkii iyo dhamaystirkii wadada uu waxeeyo waxaan kaloo ka codsanaynaa insha Allah tacaala golaha wasiirada xukuumadaba ka gobol ahaan wadada Gaalkacyo ilaa bacaad weyn oo runtii intaasoo sanana lagu lahaa xilliga ugu dhaqsiyaha badan baa la bilaabayaa oo dayactir xooggan leh in sida ugu dhaqsiyaha badan dowladdu ay wax uga qabato maadaama isku socodka gaadiidka iyo ganacsiga ay ku tahay caqabad badan ay ku tahay bulshooyinkan ku wada socon laayihiin intaa kadib waxaan rabnaa inaan u mahad celinno shirkadaha biyaha iyo korontada sida silxaqaanka leh ay guddiga ula shaqeynayaan waxaan kaloo rabnaa inaan u mahad celinno degmada Gaalkacyo iyo howlwadanadeeda guddigeeda fulinta iyo xildhibaanadeeda sida ay u garab taagayeen guddiga horumarinta iyo bulshadana u wacyigelinayaan inay contribution-ka halka dollar ay baxshaan insha Allah tacaala waad aragtaan shaqadii waxaan islahayn hadal yar iyo hawl badan inay socoto waxa kaloo inoo qorshaysan markii shaqadaani meel fiican ay inoo marayso ama aan ka soo jeesanno in wadada xabsiga oo 2 kilomitir aan wax ka qabanno annagoo kaashanayna bulshada deegaanadaas wadadu marto sidoo kale waxaan uga qaban doonaa halka dollar biyaha iyo halka dollar korontada aad ku bixisaan xaafadaha inta dhiman oo dhan hal mar baan israacin doonaa waan ognahay xaafad walba waxaan u dirnay guddi qiimeyn insha Allah tacaala xaafadda Yimayska xaafadda laanta saddexaad iyo laanta afraad iyo laanta shanaad oo garsoor iyo israac oo iswata insha Allah hal mar baan ka shaqayn doonaa Roma hal maalin lama wada dhisin waxaan isku dayeynaa insha Allah tacaala inaan tartiib magaalada isku socodkeedana qurxinno bilicdana qurxinno insha Allah tacaala bulshooyintana waxaan leenahay halka ka wada dadaalkiina juhdigiina Allah idin barakeeyo guddiga xubnaha la socdana waan u mahad celinayaa kormeerka qaybta ka waxaan kaloo u mahad celinayaa bahda saxaafadda iyadana qayb ka kormeerka aad iyo aad baan u mahadsan waxaan hadda joognaa wadada Cumar Sabantar waxay ahayd laami dhisan daadadkii ku soo rogmaday magaalada Gaalkacyo ayaa xaaqay fariistay laamigii burburiyay waxay noqotay in laamigii dib loo wada xaaqo isla markaasna dib laami cusub loo saaro waa u jeedaan halkan waxaa hadda u sameynay drainage baan u sameynay si biyahaas aysan mar dambe u fariisan oo laamiga u waxyeelayn waxuu ka qaadmayaa halkan ilaa iyo wuxuu tagayaa haas petroleum intaasoo dhan marka waa dadaal kale oo aan ahayn mid qorshaha ku jira oo ahaa midkii damage-kii uu keenay roobka uu keenay marka insha Allah waxaan rajaynaynaa meel kasta oo dhibaato ka gaarta laamigan sida la socotaan laamiga weyn waxaa dhistay dawlad baa dhista laakiin dantii waxay kaliftay maadaama wadnihii magaalada uu yahay uu burburay isku socodkii dhibaato keentay in aanu wax ka qabanno marka aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa shacabka reer Gaalkacyo oo runtii ayagu lahaa fursadda suurto gelisay in laamigan lagu dhiso marka waxaan leenahay
dadka laamiyada biibitooyinka ka soo horjeedana waxaan leenahay laamiga inay ilaaliyaan laamiga waxyaabaha burburiya waxaa ka mid ah shaaha lagu daadsho xalka lagu daadiyo marka waxaan leenahay laamiga haddii la dhiso waxaa idinka codsanaynaa inaa ilaalisaan si uga badbaado khatar dambe oo ku timaada laamiga weyn ee magaalada Gaalkacyo gaar ahaan Cumar Samatar ee aagiisa waxaan bogaadinaynaa shacabka reer Gaalkacyood oo noo suurtageliyay in ay contribution-kooda la baxaan aan wax ugu qabano waxaan bogaadinaynaa oo kaleeto shirkadda Kibaarka oo ayadana contribution-keeda ka qaadatay gacantana ku haysa waxaan leenahay meeshaan dhibaatadii naga qabsatay roobka markuu da'ay waa ogeydeen isu socodkii magaalada sidoo gabaabsi u ahaa waa ogeydeen shacabkana waxaan ku dhiirigelinaynaa inay $2 si habsamir u bixiyaan waxaan kaloo ku dhiirigelinaynaa dawladda hoose iyo dadka degan laamiga hareerihiisa in ay ilaaliyaan nadaafadda laamiga taasoo mar badan keenta in laamiga dhismihiisa uu dib u burburo maadaama wasakh iyo qashin lagu shubo waxaan leenahay aan wada ilaashano bulshaduna isku taxallujiso in ay dalkooda dhistaan iyo deegaankooda waana bogaadinaynaa